والله الهرت حقيقة jirtaa waxay tahay aynaade inaan kan jacaylkaygu jacayl weyn oo dadka dhan ay ka warhayaan oo labadeedu baanu is soo dhigano aan isku faraxsanay buu ahaa waay inaan isku shaqaalanay buu ahaa waay jacaylkayga 8 bilood oo quru socday waa 8 bilood 8 bilood waay 8 bilood oo socon wax khilaafna ma soo dhaxgalino de waxa yar dad jacayl ka dhacdhacaan ahayn waay waxa dhiin soo markii sheekadeedii day intaas oo dhan wada soconay reerkoodu u tago wuxuu yiri gabadhaasaan doonaya goorma adigu hudalka oo ana uga soo geeyay waay ilaa deedna adigu 8 bilood u dambeeyay umbaan adigu isla soconay ayaa xiriir lahaydeen ay xiriirkaygu toosaha haye reerkoodii markuu u sheegay yiri gabadhan aan doonaya war gabadhan kula ma rabna waa lagu dhooyiga keen wuxuu reerkaygu waxay gabadhaas inuu nama soo gasho reerkoodii baa isaga reerkoodii baa yiri gabadhaas nama soo gasho yiri waay markay yiraahdeen gabadhaas nama soo gasho inaan ku niyad jabo horta waay aniga qudhaydina deegankii weynaan hayay hoos buu dhacay waxaan sidoo ninka reerkoodii kuma doonayo dareemi kartaa waay isaguna shaqadiisu shaqo yar iska yar bay haydo xafiisku noo fadhiyay nin iska qaylayna waa ilaahay u naxariiste hawshiisu hawl tahay oo aanan arrinkeyga dhammaysan karin annagoo cidna u baahnayn waay taasoo socotay in badan ka bacdi waxa dhacday inaan habeen dhaweyd oo jimco ahayd isku xanaaqnay labadiinu dar la isku xanaaqnay wax isku qabsanay oo adigu sheekeero deedna aan baloogay baan khaladkan waa lahaa waay dabadeedna annagoo aan wali heshiinin unbuu galabnimadii habeenkan saas ku leenay galabnimadeedii yimkiyo cagad batroolist waay wuxuu nuuna kowsanaan wanoogi walaalna digan iyo jabtoonadi doonaynin reerkayga nacayna igu nacayso iyo wax la'aanta maantana adduunyada kuma kala hadhayno waay batroolku sida intuu furmusa iskugu shubo hablo badan baan hayno waan ka tuurno waan ka qabano qacmahan qabto markaan isku duubay sidaas oo kale aan u fadhiisinay kowdhe dadna waxay ku dhahdeen siida adigu iyo biyo soo qaadayno indhaha uga maydhno qeyndaha ka soo galay marka dadku isku dhajin waa isku dhajin batroolku uu isku shubay markaan sidaa uga dhaqaaqayna intuu dadkii saas kaga tuuray buu saas ku qabadsay tii ololayu say ugu soo cararay adigu ku soo cararay anigu igu soo cararay waay aniguna waa khalkhalayo si aan noqday garmaayo horta orod baan isku dhigay kowde ku socoynaad ku dhagashanaa reer baan u dhacay reerkii afrada albiyarsanay xilligii afartii bay ahayd waa la isku soo baxay waa la baktiyey markii anigu horta markiiba miirigii ugu dambeysay xaawadan aan kula hadlayaan caadi noqda si aan noqday waan iskara waay waan maqlay inaad raye markaa walaal horta ilaahay markuu meesha wax ka wado waxaa la yidhi sacaa weyla dhala dhibaatada jirtaa waxay tahay inaan kaa reerkooda niyad jabiyo wallaahi bilaahi talaahi aniga akhri leema weydiiyo anigu haddaan dembi leeyahay waa lay xidhi lahaa maalintii mabaan socdeen meelna maan tageen waana lay garab dhigi lahaa oo qof dilgeystay baan noqon lahaa lacag bay ka cuntay nin bay ka raacday waxaan oo dhan ma jirto khilaafkaygu halkaa arrintan ninku maxaa ka jira kawsaray may waan soomanahay waa bil rabadaan wille iyo biliyo tolay ka tahay ilaah u badiyo arsaaqad toona haysiinin inaan nin iyo sheeko kale iyo adduun toona jirin waay ku soconaad arrintaas xagga family-ga inankay ka timi dhibaatada ugu badan ee inanka maanta waxa weeye geerido horseeda waxa ka timi isaga family-giisa oo adiga waay waa arrinta xaalad kala murugal walaahay markaa walaal aniga wax allaale iyo wax kale ilaahay aakhirey qabsada waa rabadaana ilaahay iga dhaafin oo cadaabta iga fogeeyo haday sababtay dahay wax dulmiya adigu inaad kula kacday oo aad u geysatay oo aad leedahay maanta maalinta yoomul qiyaamo waa lagu qabsanayaa
والله haba yaraatee inaad isku dhacdeen dadku de way isku dhici karaan waa bini'aadanku xanaaqa yarood aan hoos noo sii jirin oo dad isjecel way isku dhici karaan wax baa la isku qabsan karaa waa qasab taasi adaa carab qoyin ku hadlaya caawa oo dee xay oo dunida korkeeda jooga isagoo caawa inaga hooseeya de waa maytiinaadeer waxaad adigu ku hadasho bay dadkuna maanta qaadayaan xaqiiq wey haye walaal anigu maanta mid baan niga codsanaya ku soconada inaad dadkay gaadhsiisaan waay ku soco walaal qof isdilay waa garanaysaa wuxuu ilaahay la hortagay sawiradiisa heesaha dul saaraysaan inta ka diisaan ilaahay dartii walaal u duceeya duco ugu bedela oo ugu caawiyentaa aniga maanta xay baan waxu noqon maayee laakiin miskiinka maanta inaga hooseeya aynuu ducayno duco aynu ugu bedelo waad maqlaysaan fiis ku raadsanaysaan waad maqlaysaan ina adeer Kawsaray waan ku dareemaynaa markaa in adeer adigana horta ilaahay qalbigaa ku qaboojiyo kamaradana iska xidh warde waa maqnaay inanta ku eedeynaya lahaa inantu lacag bay ka qaadatay waad maqlaysaan bal waxa ka odhansa ka dhahay in adeer inantuna waa horta dadkan maxaa dhahdaa Soomaalidu waa wax